السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markii aad tahay qof dhalinyaro ah misana wax baranaya waa in aad lahaataa riyooyin iyo hami nololeed oo naftaada wax ku tari kara weliba dadkaaga iyo dalkaaga mustaqbalkooduna waa in uu ahaadaa mid ku salaysan nolol qurux badan. marka aan ku leeyahay qurux maahan in aad leedahay lacag iyo quruxda kale oo caadiga ah, waxaan ula jeedaa in aad leedahay aqoon. marka ku dadaal waxbarashada lana imow niyad saafi ah, kana fikir mustaqbal qurux badan, maxaa yeelay haddii aad leedahay niyad wanaagsan oo aad sawirto mustaqbalkaaga in aad wanaag ku noolaanayso, waad gaaraysaa insha Allah. nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay wax walba waxay ka imaadaan niyada. waxaa isoo jiidatay oo raadahaysa wax walba oo aad ku riyooto waad gaari kartaa. waxaana wanaagsan inaad kalsooni fiican ku qabto naftaada, kalsoonidaasi oo aad ku xaqiijin karto riyooyinkaaga iyo hamigaaga nololeed. haddaba muuqaalkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay su'aasha ah sidee ku noqon karnaa qof ku guulaysta riyooyinkiisa. waxaan kula wadaagayaa 6 tillaabo ama 5 tillaabo. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. qodobka koowaad, dooro riyadaada. adiga oo dooran riyada aad doonaysa in aad gaarto, ma gaari kartid ilaa aad la timaado riyo gaar ah oo leh lambar go'an. tusaale, waxaad doonaysaa in aad ku wanaagsanaato luuqadaha caalamka oo dhan. waa muhiim in aad taqaano waxa aad doonaysa in aad ku riyooto. qodobka labaad, riyadaada u beddel rabitaan. waa in aad leedahay rabitaan adag si aad u xaqiijiso rabitaankaaga. waa in aad qalbigaaga ku beertaa rabitaan fara badan, kuna faraxsan tahay dhibaatooyinka kaa soo gaaraya, oo aad niyad jebin, oo aad u kabtaa dulqaad iyo samir. qodobka saddexaad, rabitaankaagu ha ku salaysnaada hadaf. marka aad rabitaan qalbigaaga ku beerto, kadib rabitaanku waa in aad u isticmaashaa xaqiijinta hadafkaaga oo kugu kaalmaynaya in aad xaqiijiso hadafkaaga. qodobka afaraad, samayso qaabkii aad ku rumayn lahayd riyadaada. si aad riyadaada iyo hadafkaaga u gaarto, waxaa lagama maarmaan ah in aad samaysato qorshe kuu gaar ah, noocuu raba ha ahaadee. qorshe la'aan lama gaari karo, sidaa daraaddeed waa in aad qorshe samaysataa. qodobka shanaad, qayb ka dhig ahdaaftaada. qaabkaani oo kale qaybinta ahdaafta wuxuu kuu fududaynayaa in aad gaarto riyooyinkaaga. markii aad sii kala dhigto oo aad qayb u kala dhigto, mid walibana aad waqti siiso, waa ay kuu fududaanayaan xaqiijinta hadafkaaga. qodobka lixaad, dib u sii fiiri, dib u sii eeg qaabka aad wax u wado, meesha aad ka soo bilowday, meesha aad marayso, iyo waxa kuu dhiman. waqtigii aad qorshaysay ma ka dib dhacay ama waa ka hormaray? intaba in aad fiirisa waa muhiim. qodobka toddobaad, naftaada si xad dhaaf ah ha u dhibin. markii aad shaqo badan qabato ama aad wax badan akhriso, waxaad daal badan ka dareemaysaa maskaxda. marka waxaa loo baahan yahay waqti in aad siiso oo aad nasato. sidoo kale jirkaagana sii waqti ku filan oo nasasho ah, si ay kaaga saacido in aad gaarto riyooyinkaaga.
Toddobadan qodob waxay kuu sii xaarayaan in aad ku guulaysato riyooyinkaaga. Si aad u xaqiijiso riyooyinkaaga, waa in aad tallaabooyinkan siday u kala nidaamsan yihiin ugu dhaqantaa. Waxaana kuu rajaynayaa in aad ku guulaysato riyooyinkaaga. fadlan haddaad ku cusubtahay kanaalka subscribe saar, asxaabtaadana la sii wadaag. waa aniga oo Ayuub Abdikarim. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.